السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دمانتي waan idin salaamay halkan waxaan ka bilaabaynaa hadda waa mashmashkii aan sameynaa insha Allah halkaas digsi biyo ku jiro noogu jiro sokortii aan ku shubaynaa insha Allah sokortaas waa la karkarinayaa mashmashka waxaa loo baahan yahay sokortiisa inuu karkarsano halkaas baradhii waxaa noogu jirtay ukun oo karayso nafaqadii aan ka sameynaa kaas duu Ilaahay ka dhigo marka halkan waa burkii caadiga ahay waxaa loo baahan yahay burkan caadiga arkaysaan marka biyaha sokorta iyo biyaha isku karkaraan ayaa maaragtay burka ku dhex daraysaa insha Allah waa bur caadi ah arkaysaan waxba kale aan ku darin waxba kale ku darin bur kaliya waaye marka waxaa loo baahan yahay inaad sokorta aad karkarisid sokorta markay karkarto iyo biyaha isku karkaraan aad yar qaboojisid aad maaragtay burkaas maaragtay aad ku qasto duu Ilaahay ka dhigo marka hadda sokortii waa tan karkartay xumbeynaysa macnaha hadda waa kugu dhageysaa xataa yacni waa maaragtay fartaan ku tusi doona insha Allah way kugu dhageysaa markay dhagdhagaas sokorta ay bilowda aragtid oo yacni faraha aad dareentay inay sokorta dhageyso ayaad maaragtay dabka u gaabinaysaa oo kasoo dejinaysaa qaboojinaysaa waxaad dusha kaga daraysaa marka burkii aad dusha kaga daraysaa insha Allah oo arkaysaa yacni inay kastoo xabag xabag camal ay tahay oo adag tahay marka waxaan isku qasayaa marka sokortii iyo waxaan isku qasayaa iyo burkii marka sokorta waxay raadaan korka waxay tartiib ugu daraya marka yacni si fiican marka u qasi doonaa insha Allah maxaa la dhahay haddana sokortan ku darsan doonaa insha Allah haddana sokortan ku daraya waa idinkana arkaya waa sokortii sokorta marka hadii kugu yaraato xataa dhib ma lahan oo sokortii adkaato biyo caadi ah kaga darsan kartaa dhib ma lahan marka qaandada waa iska dhigay aniga gacanta markasta muhiim waxaa inaad si fiican ugu qastid gacanta iska soo dhaqaysaa gacanta la gelaysaa si fiican markaysaan yacni tartiib ayaad sokortii haddana maaragtay burkii qasaysaa haddana tartiib biyaha kor kaga darsanaysaa yacni hal mar hololab looma baahno waxaa waaye bahasha si tartiiba maaragtay biyahan ku daraya haddana weelkii sokorta ku jira biyo ku raacsiinaya aan ku daraya haddana tartiib aan qasaya maanta oo dhan si xooggan oo qasda hal mar looma baahno biyo badan hal mar aad ku shubtaan leh looma baahno ka halaabaya marka waxaa loo baahan yahay inaad iskaga raaxaysatid tartiiba u qastid jawi degan ma fahamtay markaa saas u qastid wax yar aad dhigaysaa insha Allah kabacdi aad maaragtay taawadii saaraysaa iyadoo kulul maaragtay si fiican cajiinka isku dhex galay si fiican markuu cajiinka isku dhex galay aragtay inuu isku milmay ayaad biyihi haddana tartiib waxaad kabacdi biyo ku daraysaa waad qasaysaa waxaad biyo intay ordi adi orod ma fiican haraka ayana barakeedina kay aswaxiliga marka si fiican aan qasaya aniga waan qasayaa maaragtay waa jilcinayaa si fiican aan jilcinayaa waliba maaragtay si fiican aan jilcinayaa sidii maaragtay canjeerada oo kale ama sidii malwaxa oo kale aan jilcinayaa insha Allah laakiin zaid ha u jilcina markood waxaa loo baahan yahay horta inaad yacni kasto yacni adeeg because markaad biyaha gadaal ugu daraysa dhib male laakiin haddii bur gadaal uguma dari karto waxaa waaye dhib shidi iyo balaayo kale la kulmaysaa yacni marka ujeeda saas weli xataa wuu adag yahay weli caadi waxaan ku darayaa biyaan kusii daraya insha Allah biyaan kusii dari doonaa haddana marka wax yaraan dhigayaa hadda marka baradhadii aan gelaynaa baradhadii bisha waa kala jibinaya waa jijibinaya baradhada looma baahna zaid u jibisid waxaa loo baahan yahay inaad kuskus yar aad ku rubtid baradhada yacni waa adiga arkaya kuskus yar ku jiro baradhada zaid hadaa u jijibisid yacni ma controli karaysid hadhow yacni marka ukunta markaad dhex gelinayso oo kuskusi sidoo kale way ku dhibaysaa wax jilcsan noqonaysa saliidda markaad ku kudayso way ku dhibaysaa marka halkan waxaan kusoo xawaaji dhuubi xawaaji buur maraq digaag iyo paprika powder maxaa la dhahay paprika powder waxaa taqaanaa maxaa la dhahay barbarooni qallalan marka waa isku qasayaa marka si fiican isku qaso idinkan arkaya waa isdhex geliyey si fiican u jibis loo maro bas waa isku qasay kaliya xawaajaashu wixii waa ku qasay iyo wixii aan ugu daran lahay waa idinkan arkaya marka waa kuskuusaya ukuntii ayaan dhexda ka gelgelinaya marka jeex ukuna ayaan dhexda ka gelinaya ukunta waan kariyey jeex ukuna ayaan dhexda ka gelinaya insha Allah hadda saliidiyana si fiican loo kuleeyay marka mashmashkan kusoo laabanay mashmashka waa in si fiican u qasay saliidiya marka waa in birta si fiican ku kurso saliid badan laguma shubay meesha saliid yar oo macquul ah ayaa ku shubaysaa laba taaba hamar aan saaranaya hal taaba maahan laba taaba aan saaranaya si mashmashkan ciyu u buubsiyo marka waxaa loo baahan yahay saliidda dhinacyada jag dhexdiina ka bislaato bahasha dhexda because inaan gedgediyo ma rabo hal mar saas u gedinayaa markii horaan ka qaaday haddaad sa uguda gedisid oo maarata dhambacada u gedisid waayo indhaha ay hadda leedahay amba quruxda hadda ay leedahay indhaha ayaa dhumayo marka bahashana waxaa fiican geesaha ka guduudnaato dhexdan kastoo korna ay cad ka tahay laakiin ay bisishahay inay hoos kasoo guduudato geesaha ka guduudan tahay ee dhexda saasay ka tahay indhahaas ay leedahay yayna jilcan tahay yacni sidii maaragtay warqadii oo kale saas dhigi karta aad u jilcan tahay yani ayaa loo baahan yahay sooftan ay tahay marka waa idinkaas arkaya marka aniga hal maraan tusaya saliidda haddana horaa waa kasii qaadaya kuma haynaya markiiba
koos waxa hadii guduto waa ma fiicno markii waana ka qaadaa ma fahanti idoo sidii u cada soo bixinaysaa adiga arkay systemkaas maanta oo dhan aan ku wada marka waxaan tusayaa marka system tartiib aan tusayaa insha Allah saan maaragtay maanta dhan maaragtay waxaan tusayaa inuu Dubai maanta dhan habka uu Dubai saliida si jibti kan baashaas inuu jilcanta loo baahan yahay hadaa haysatid baalka maxaa la soft inaad dhinacyada ka saartid amba maaragtay shukumaan cad oo nadiif ah yani saliida saad maaragtay ugu qabatid ani saliida badan ma jecel baasha marka saliid kasto kullu ku dubta waa maaragtay saliid uu dhuuqaya marar laakiin waanad maaragtay adiga anta amba baalki taawadi koodan ku shubay taawadi labaad waa tan baasha laba taawa ay saaran marka waayo maraan yaraan waa soo xastiirantay ma sha Allah aabeen caawi jira markaan sameeyo laba taawa saddex taawa hamar saar jira markaasaan buubsi jira waay baaldi dhano ma sha Allah inaad dubtid yaraantida markaan soo xasto cajiib wallahi aabeen caawi jira ma sha Allah waa koog ahay koognimadan aabeen keena ma sha Allah oo maartan caawi jiray marka mashmashka ma sha Allah saasad yeelaysa maanta oo dhan maaragtay saliidan dhinacyada kaga soo shubaysaa si ku laato si dhaxda ugu bislaataan dhaxda inay ka bislaato saliidu kulad shab kusoo siinaysaa maanta oo dhan waa arkaysaa sii bislaanaysaa dhaxda kasii bislaanaysaa saliidii kulad marka saliida qiyaas ahaan baad dareemi kartaa yani inay yar tahay soo jeedi yani saliid badan ha ku shubin taawada saliid badan ha ku shubtid waxa waaye waa xadka wixii way ka baxayaan marka haddana waxaan tusaa marba yani systemka oo mashmashka u dubma macnaha ayaan tusayaa marba haddana waan tusayaa haddana waxaan tusayaa taawadii oo qiiqayso kulul saliid waa inay ku kulushaa si fiican dabkan ilaahay kuma darna dabka saliidan isaas mujda saliidan inay ka hoos marto baasha lama rabo waxa fiican in saliid kasto ka sareyso oo adiga qaandada inta soo qaad saliid geesaha jirtay dhaxda ugu soo shubtid martid waana dhaxda ugu soo shubay saliida marka saasa loo baahan yahay mashmash maanta oo saasa ku wadid maanta oo saasa ku wadid insha Allah saliida dhinacyada kaga soo shubayaan dhinacyada ka shubay intaas waxa weeyaan tusaya waxa weeyaan maxay toolta waxa weeyaan tusaya kaliya inaad fahantaan maaragtay maxay toole inaad fahantaan yani inaad sidii uu dubmay bahalkan inaad fahantaan insha Allah biidhnillaahi alkariim marka mashmashka maxay toole saasa lagu wadaya insha Allah maanta oo wada arkaysan marka asxaabta soo dubmaayo maaragtay وشيلماyo waa muhiim inaad aragtaan iyo hadhow waxaan tusi doonaa insha Allah nafaqadii idane habkan u sameyn doono u qurux badnaan doonto insha Allah nafaqadiina ayaan idin tusi doonaa haduu Ilaahay ka dhigo marka asxaabtu waa kaas la socdo mashmashka waxa loo baahan yahay sidaas inuu ahaado maaragtay jileecas weey mujida inuu jileecas yahay dhinac kasta waa jileecas oo ka yahay oo khafiifkaas yahay loo baahan yahay mashmashka marka hadda waxaan galeynaa insha Allah hawshii nafaqadan galeynaa halkan waxaan ku shubay wax saafraan yar aan ku qasay iyo biyo isku qasay bur baan dusha kaga daraya insha Allah burkaas iyo saafraankaas ayaan isku asxaabta dadaan saarkeysaan halkan ukunta ku jirto ukunta soo qaadaya maaragtay baradhadii waa taasa dhaxdan ka gelinaya marka waan isku kuskusay sidii banooni oo kale isku kuskusaya waa idinka arkaya marka hadda meeshaan iska dhiganaya markaan kuskuso si fiican kuskuso baradhada waxa loo baahan yahay in zaid u weynaato lama baano waa ka gooynaysaa wax yar yani banooni sida bowl camal ku noqoto ukuntan ay ku qaato marka saas aan marka yeelaya marka saas iska yeelaya saas aan dhigan xaggaas dhiganaya marka la socdo insha Allah hadda macnaha saliidii ayaan ka dhaxgeliyay burkii aan dhaxgeliyay saliidii marka waa anigaas maaragtay shiilitaankii ku bilaabay maxay ahayd tolo saas aan u shiilaya maanta oo dhan marka saliidna waa inay ku kulaataa saliid kulul ay ahaataa marka hadana si tartiib ayaa u gudgudinaya insha Allah marka aniga ilaahay waxaan sameeyay dhowr xabbo laakiin kala qaybsanayaa marka haduu Ilaahay ka dhigo si fiican u bislaa doontaa biidhnillaahi alkariim jawi degan oo macaan ku bislaanaysaa marka oo gudgudinaya marka dhow marka waxaan sameeynaya hadana ukun baan qaadanaya ukuntii maaragtay ayaan maaragtay dhaxda ka gelin doonaa insha Allah ukun laba xabbo kuna jibin doonaa insha Allah saarki doontaa insha Allah hadda soo arkaysan ukuntii ayaa halkan ku jibay labada xabbo ukun ahayd marka labada xabbo ukun jibiyo waan garaacaya insha Allah horta kan baan saliida ka soo saaray saliida markaan kan ka soo saaro ayaa meel dhigaya oo yar qaboobaya saliidan waan sii kuleynaya markaas ukuntii markaan taadhuda dhex geliyo ayaa hadana saliidii dib ugu celinaya insha Allah marka waan ka yar guraya saliidan waan nadiifinaya saliidan waan kuleynaya asigana waxaan yar qaboojinaya markaan qaboojisto ayaan hadana ukuntii aan labada xabbo meesha ku jibiyay ayaan intaan si fiican u qaso ayaan hadana ukuntii dib u dhex gelinaya insha Allah waa aniga soo qaboojiyo hadda ukuntaan gelinaya ukunta markaan geliyo saliidii hadana iyo kul maaragtay ayaan ku dhex deenaya hadana waan gelinaya saliidina aan nadiifsaday marka saasaan ugu ridaya maanta oo dhan
waa arkaysaan yani ukuntii wayna ku dhagan tahay wayna bislaanaysaa. Marka wuxuu noqonayaa wax buunsho oo kale ayay hadhow dusha kaga noqonaysaa oo qabshax oo kale macnaha karmash oo kale maarata oo markaa cunaysa aad jeclaanaysid ayay noqonaysaa. iyo caraf ukuntii markaad meesha kula shiishay iyo wixii ukuntii soo caraftay kula caraftay intaba waad ka helaysaa. marka insha allah yani saasaan ku wadeynaa marka nafaqadii. asxaab hadda ka hor macnaha waxay dhaheen nafaqada maaragtay sidii hore aan u sameynay way naga halawday. marka aniga noocyo badan aan u samaystaa baashaan, siyaabo badan aan u samaystaa aniga aan garanayaa. ani maadaama kuga aan ahay ima dhibayso saan doona wax ku samaysan karaa maaragtay farsamo kasta wax u samaysan karaa. arkaysaan kusoo baxday baashi yani jawigaasi kusoo baxday quruxda badan. marka qofka markuusan kuuga ahayn waxaa laga yaabaa waxyaalaha qaar inay dhib ku tahay ama qofka markuusan jiko si fiican isku fiican. laakiin qofka markay jiko isku fiican yihiin yani si kasta wuxuu u fahmi karaa. marka wixii waa la isku daya haddii markaa halaabaan mar labaad mar saddexaad waa toosinaysaa dhib ma laha. anaga waxaan waa soo baranay oo maaragtay waan ugula qeyli jiray markaa yar marka wax haleeno amba maaragtay qalad aan sameyno waan ugula qeyli jiray maaragtay wax qofka bini'aadamka uu qaldaa. marka asxaabta ma sidii